maxaad ka taqaanaa taariikhda halgamayaashii SYL halkan kaga bogo ayaan ku dheeraanin maxamed xaaji ingiriis soo dhawow sagaalka iyo barka waan kaa joojin doonaa haddii la yidhahdo waxaan furi doonaa doodo iyo su-aalo ayaan dadka siin doonaa. mahadsantahay maxamed xaaji. mahadsanid dr maxamed sheekh cali doodishe. waxaan rabaa inaan u mahadnaqo adiga iyo xasan mudane oo igu soo casuumay barnaamijkan macadkiina iyo dhammaan inta na daawanaysa halkan nagula jirta iyo inta live noo daawanaysaba. xasan waxaan rabaa inaan kaa codsado hoostiga inaa ii ogolaato share screenka inaan presentationkayga soo bandhigo tuso intaan hadlayo. okay shareka waa kaa waa arkaan soma waa la arkaa waa ujeeda maxamed xaaji. okay marka waxaan bismillahi raxmaan raxiim waxaan ka bilaabi doonaa marka inaan waqtigaan oo ka faa'iidaysanayo toos u galo. The Somali Youth League ama SYL af Soomaali ku ah dhaqdhaqaaqa dhalinyarada Soomaaliyeed oo Soomaalidu waaga u taqiinay Lego waxay ku bilaabatay magaca Somali Youth Club ama SYC. dadka Soomaaliduna SYC waxay u yaqaaneen club ama club waxaana la aasaasay 15 May 1943. waa tuu laashinkii la oran jiray oo jimcaale degataag lahaa annaga kolkeenii tahay club ha noolaado marka club ayaa loo yaqaanay SYC muddadii ay jirtay 43 ilaa iyo 47 intaysan isku bedelin SYL. si kasta ha noqotee waxay ku bilowdeen 13 xubnood oo noqday sida iyaguba isugu yeereen warqadii ugu horreysay u gudbiyeen Ingiriiska first members oo ah xubnihii ugu horreeyay. afartii xubnood ee ugu sarreysay waxay u doorteen habeenkii warqadda gudbiyeen Cabdulqaadir Sheekh Sacaawudiin oo noqday gudoomiye, Daahir Xaaji Cusmaan oo noqday xogeyaha guud, iyo Maxamed Xirsan Nuur iyo Maxamed Cusmaan Barbe oo laba xubnood ah oo ay isku lamaaniyeen. afartaas ayaa guddigii sare noqday. waxay kaloo qasnaji u doorteen Yaasiin Xaaji Cusmaan iyagoo kontroolka dhaqaalaha u doortay Maxamed Xuseen iyo Dheere Xaaji Dheere. sidaas waxay ku caddahay mid ka mid ah feelasha sirta SYL ee yaalla UK National Archives. si kastay noqoto ilaa iyo maanta dood badan ayaa waxay ka taagan tahay siday ku bilaabatay, cidda bilowday iyo goorta ay bilaabatay. waxaase taas ka muhiimsan xaaladii siyaasadeed iyo tii dhaqan dhaqaale ee saaciday inay soo ifbaxdo SYC. haddaba haddii aan taas dib u eego 1940kii ayaa dagaalkii labaad oo bilow ah waxaa geeska Afrika isaga hor yimid Ingiriiska iyo Talyaaniga. Ingiriisku wuxuu matalayay isbahaysigii la baxay Allies oo ka koobnaa Ingiriiska, Faransiiska, Maraykanka iyo Ruushka. Talyaaniguna wuxuu matalayay isbahaysigii loo yaqaan The Axis of Power oo ka koobnaa Fascist Italy, Nazi Germany iyo Imperial Japan. marka bishii August 1940kii waxaa dagaalka ku saabsan gacan ku haynta gobolka geeska Afrika ku adkaaday Talyaaniga oo Ingiriiska ka saaray dhulka British Somaliland iyo dhulka Soomaali galbeed. waxayna haysteen ilaa muddo ku dhow 7 bilood. bishii February 1941 ciidamo ka socda Ingiriiska oo ka soo duulay Kenya ayaa waxay furteen magaalada Muqdisho. bishii xigtay Maarsna waxaa Talyaaniga laga saaray British Somaliland iyo Soomaali galbeed. Ingiriisku wuxuu bilaabay inuu furfuro siyaasadii uu Talyaanigu ku dhaqi jiray koonfurta Soomaaliya oo ay u yaqaaneen Soomaaliya Italiana ama Italian Somaliland. waxaa Ingiriisku bedelay nidaamkii la karhay ee xukunkii fascistada Talyaaniga ee si qasaba dadka Soomaalida ee degan dhulka labada webi ugu fali jireen beeraha ku yaala gobolka hadda loo yaqaano Shabeellada Hoose. waxay kaloo Ingiriisku fasaxeen in dadka Soomaalidu ay sabaabuli karaan oo ay furan karaan dhaqdhaqaaqyo bulsho social clubs. waxaa xusid mudan in dhaqdhaqaaqyada noocan oo kale ah ay horey uga fududayeen Soomaalidii ku noolayd magaalada Cadan ee dalka Yemen sanadihii 20-meeyadii iyo Soomaalidii British Somaliland 30-meeyadii. Cadan waxaa horey uga soo furay Xaaji Faarax Omar markii dambe la soo musaafiriyeen wuxuu la yimi magaalada Hargeysa wuxuu kaga sii gudbay Burco kadib oo ay sii musaafiriyeen wuxuu u sii gudbay Dirdhal. sida awgeed guud ahaan ma ahayn wax cusub in naadi social club la furo, laakiin waxa ay wax ku cusub koonfurta Soomaaliya oo 19 sano ku hoos jirtay xukunkii fascistada Talyaaniga sanadihii u dhaxeeyay 1922 ilaa 1941. fikradda lagu sameeyay SYC sida ay qorayaan warbixinada maamulka gumaysiga Ingiriiska waxaa iska lahaa nin sarkaal ah oo Ingiriiska u dhashay oo ka soo noqday waddanka Aasiyada fog ku yaalla ee Burma, halkaas oo uu hogaamiyey urur ciidan oo Soomaali u badnaa. ciidanka Soomaalida ayaa askarta Japan ka saaray meel laga saari waayay madaafiicda goobta lagu riday wax kastoo lagu asqaysiiyey waa laga saari kari waayay meel ay galeen. sidaana waxaa qoray John Drysdale oo dagaalkaas ka qayb galay marka dambana noqon doona la taliyaha dawladdii Soomaalida ee 60 dhalatay markiisii dambana noqday nin caalim oo scholar Soomaaliyana aad u darsay buug badanna ka qoray goobjoogna ka ah wixii meesha ka dhacay. konsulka Ingiriiska u fadhiya Soomaaliyana noqday kii ugu horreeyay kontameeyadii aakhirkeed. markii lagu soo noqday Soomaaliya ee Baarman laga yimid
wuxuu sarkaalkaas isagoo ku abaalmarinaya soomaalida usoo jeediyey fikrad ah inay samaystaan naadiyaal ay kor ugu qaadaan garaadkooda siyaasiga ah khaasatan dadka dhalinyarada ah halkaas waxaa markii ugu horreysay laga furay Xamar Youth Club oo lagu dhawaaqay bishii April 1943 hal bil kadibna waxaa lagu dhawaaqay SYC waxay hadaf ka dhigtay 3 qodob oo ka balaaran ama wider more broader ka ah hadafkii lagu dhisay Xamar Youth Club hadafka SYC qodobkiisa koowaad wuxuu ahaa in la mideeyo dadka Soomaalida labo laga shaqeeyo dadka dhalinyarada inay helaan waxbarasho casri ah iyo afar in la helo far Soomaaliyeed oo lagu qoro farta Soomaaliga ah fartii marka ay soo bandhigeen ayaan halkan idinka tusi doonaa adinkoo raalli ah marka haddaad hoos u wado Xasan way fiicnaan lahayd ya okay adaad ay wadudi doona adaa dhaqaajin karaan umalaynaa okay farti waa tasaa waa aragtaan soo waa fartii cusmaaniyadda oo ay rabeen waxay doonayeen far local ah in la helo oo aan ahayn farta carabeed ama roman scriptiga oo markii dambe farta soomaalida lagu qoray horeyna farta soomaaliga ay hadda noogu qoran ay u isticmaali jireen ethnographerskii gumaysiga ay ku qori jireen tan latiinka ama romaanka laakiin SYC saan tilmaamo waxay doonaysa in la helo far ay soomaalidu iyadu iska leedahay sida midda cusmaaniyadda uu alifay Cusmaan Yuusuf Kennedy marka dhaarta lagu dhaaranayo xubnaha SYC waxay ahayd kow waxaan ilaahay hortii ku dhaaranayaa inaan qaadi doonin wax ficil ah oo ka dhana qof kasta oo Soomaali ah haddii dhib dhaco waxaan ballan qaadayaa inaan caawiyo Soomaaliga waxaan noqon doonaa walaalka dhammaan xubnaha oo dhan waa xubnaha SYC ma sheegi doono magaca qabiilkayga dhanka arrimaha guurka ma kala sooci doono qabiilada Soomaaliyeed iyo Midgaan Yibir Yaxar iyo Tumal dhaarta SYC sidaasay ahayd marka xubnihii waa kuwaasa ururka markii dambe membershipka ka noqonay arrinta marka ku saabsan inaan qofna sheegi karin qabiilkiisa waxay dhibaato weyn ku keentay maamulkii gumaysiga Ingiriiska oo ka dhigay aqoonsiga uu leeyahay qofka Soomaaliga inuu yahay qabiilkiisa tusaale iyadoo ay maxkamadda ka socoto magaalada Muqdisho ayaa waxaa la soo xiray bilowgii 40-meeyadii nin ka mid ah dhaqdhaqaaqa oo lagu soo eedeeyay fal dambiyeed markii lagu celceliyay inuu sheego qabiilkiisa wuxuu diiday inuu sheego markii dambe ayaa garsoorihii Ingiriisku yiri haddaba aniga ayaa qabiil ku qoraya wuxuuna u qoray qabiil ka mid ah qabiilada Soomaaliyeed ninkii ayaa ka dhaxqayliyay maxkamadda gudaheeda oo yiri waa ninkii ka tirsanaa SYC ima qori kartid qabiilkaas liita ee aad ii qortay sida awgeed ii qor qabiilkayga oo ah reer hebel kaad ii qortayna ka ballaaran arrintaas oo keentay in garsoorihii iyo dadkii maxkamadda jooga oo dhan ay qosol ku wada dhuftaan jawaabta eedaysana waxay tusaale u ahayd ilaa haddana u tahay in qabiilku uu cabir iyo dhextaal u yahay marinka laga miisaamo falgalka nololeed ee bulshada Soomaalida dhanka wada shaqaynta xiriirka u dhaxeeya SYC iyo gumaysiga Ingiriiska aad ayuu u wanaagsanaa muddadii u dhaxaysay 1943 ilaa iyagoo ka caawinaya khilaafaadka qabaa'ilka iyo isku dhacooda ku salaysan daaqsinta iyo biyaha dhinaca miyiga muddadaas waxay shaqada ugu weyn SYC ahayd waxbarashada dadka waaweyn iyo wacgelinta bulshada waxayna soo dhaweyn wanaagsan ka heleen dadka Soomaalida intooda badan meel ay joogaan sababta ugu weyn waxay ahayd iyagoo kaga duwanaanay diidii kale ee dhashay ee xilligooda jiray ama kuwii ka horreeyay inay u ololeeyeen fikrad uu asalkeedu lahaa maamulkii gumaysiga Talyaaniga intii waddanka haystay oo ahayd ban Soomalism oo ah in dhulka Soomaaliyeed oo dhan lagu mideeyo hal maamul maamulkaas Talyaanigu wuxuu rabay inuu asaga hoos tago Ingiriiskuna wuxuu rabay inuu asaga hoos tago tusaale muddadii gaabnayd ee Talyaanigu xukumayay Italian Somaliland British Somaliland iyo dhulka Soomaali galbeed wuxuu dib u qaabeeyay qaab dhismeedka maamul ee dhulka Soomaalida wuxuuna dhulka Soomaali galbeed iyo British Somaliland ku soo daray Soomaalidii uu ka xukumayay Muqdisho Ingiriisku markii uu bedelay Talyaaniga wuxuu ku sii socday fikradii Talyaaniga laakiin wuxuu ka bedelay in British Somaliland uu ku celiyay sideedii hore oo ahayd meel uu gooni isagu u xukumo halka Soomaali galbeed uu hoosgeeyay maamulkii ka jiray Muqdisho loona yaqiin PMA ama British Military Administration labadaba wuxuu u aqoonsaday waxa uu bixiyay occupied territories oo dhulal haysto SYC waxay ku dhawaaqday inay xafiisyo ka furato meelo kala duwan oo dhulweynaha Soomaalida ka mid ah dokumentiyada yaala UK National Archives waxay muujinayaan iyo xitaa Kenya National Archives meelihii ay xafiisyada ka furteen waxaa ka mid ahaa dhulka Soomaali galbeed asatan Dirdhabe Jigjiga iyo Harar dhulka NFD waxay ka fureen meelo ka mid ah Garissa iyo Wajeer oo ku jiray gacanta Ingiriiska arrintaas waxay SYC ka socday dhaqdhaqaaqyadii kale ee ku koobnaa Muqdisho kuwaas oo xoogga saaray arrimo bulsho oo Italian Somaliland oo kaliya ku kooban
SYC waxay kaloo xafiisyo ka furatay burco iyo hargeysa oo British Somaliland ah markii ugu dambeysana waxay wada hadal kula jireen gumaysiga Faransiiska ee fadhiyay Djibouti isagoo mar dambe ka ogolaaday inay xafiisyo furtaan markii dambena ka xiray dhanka maamulka waxaa xogeyaasha SYC iska kala bedelay Daahir Xaaji Cusmaan Ahmed Xaaji Suleymaan iyo Yaasiin Xaaji Cusmaan waa xogeyaashii guud 1946 waxaa SYC isaga baxay qaar ka mid ah xubnihii asaasay sida Dheere Xaaji Dheere oo noqday xogeyaha guud ee Xamar Youth Club isbedelka xoogga leh wuxuu SYC ku dhacay bilowgii 1947 markii restructuring ama dib u qaabeyn lagu sameeyay naadiga oo laga dhigay mid siyaasadeed loona bixiyay SYL talaabada si rasmi ah loogu rogo dhaqdhaqaaq siyaasadeed waxaa caawiyay iyadoo quwadihii afarta ah ay ku guuleystay dagaalkii labaad oo kala ahaa Mareykanka Ingiriiska Faransiiska iyo Ruushka isku afgarteen in waddamadii Talyaanigu haystay sida Soomaaliya Eritrea iyo Liibiya la soo dhageysto araada dadweynaha iyo kooxaha kala duwan ee ka jira bal inay doonayaan xorriyad iyo inay kala doonayaan Talyaaniga iyo Ingiriiska ama wax kale oo aan intaas ahayn sababtaas waxay ahayd sababtii SYL iyadoo u diyaar garoobaysa arrintaas ay dib u habeyn siyaasadeed oo degdeg isugu samaysay bilowgii bishii January 1948 waxaa magaalada Muqdisho yimid wafdi ka socda afarta quwadood waxayna waraysiyo kala duwan la yeesheen dhaqdhaqaaqyadii kala duwanaa ee dalka jiray oo ay SYL ugu horeysay wafdigu waxay SYL la kulmeen duhurkii maalintii taariikhdu ahayd 20 January 1948 waxaana keeskeeda u gudbiyay Xaaji Maxamed Xuseen oo ah madaxweynaha SYL Abdullahi Ciise oo ah xogeyaha guud ee SYL iyo afar xubnood oo kala ah oo iyagu iska soo xuleen Shariif Maxamuud Cabdiraxmaan Faafiyo Xaaji Faarax Ali Cumar iyo Xaaji Bashiir Ismaaciil waxa iswaafaqay statementyadii SYL ay gudbisay iyo Xamar Youth Club barnaamijka labadooda wuxuu ahaa in Soomaaliya xorriyad lagu siiyo 10 sano gudahood xorriyadana ay gaarsiiyaan afarta quwadood oo wada jira waa afartii quwadood ee ku guuleystay dagaalkii labaad ee adduunka arrintaas waxaa ka soo horjeestay dhaqdhaqaaqyadii kale sida Conference Somala xisbiya Digle iyo Merfle Patriotic Beneficence Union Africani iyo Somali Young Afghal Association sidoo kale laba dhaqdhaqaaq oo ay kala wateen jaaliyadaha Talyaaniga iyo Carabta kuwaas oo kala ahaa Comitato Representativo Italiano iyo Arab Community in Muqdisho Conference waxay dalbadeen in Soomaaliya xorriyad lagu gaarsiiyo 30 sano oo uu Talyaaniga kor ka maamulayo dhaqdhaqaaqyada kale waxay ku raaceen Conference in 30 sano oo Talyaanigu xorriyad ku gaarsiiyo Soomaalida xisbiya iyagu waxay bilowgii hore soo jeediyeen in Talyaanigu xorriyad gaarsiiyo Soomaaliya laakiin markii dambe waxay dalbadeen 30 sano oo wasaaradda qaramada midoobay in lagu gaarsiiyo xorriyadda dhaqdhaqaaqyadan waxaa lagu magacaabay Pro Talyan ama kuwii Talyaaniga taageerayay waxaa si xusud mudan oo mudan in la saxo hoostana laga xariiqo in dhaqdhaqaaqyadani aysan dalban xukun gumaysi balse ay dalbanayeen in gaarsiinta xorriyadda Soomaaliya loo wakiisho Talyaaniga halka dal kale loo wakiilan lahaa waxa sidoo kale inta dheeraa in xisbiga SYL isagana lagu eedeynayay inuu u janjeero dhinaca Ingiriiska isjiid kadib SYL oo mowqifkeeda bedeshay iyadoo markan dambe dalbatay in Ingiriisku gaarsiiyo xorriyadda Soomaaliya iyadoo quwadii afarta aanay isku mari waayeen waddanka gaarsiinaya Soomaaliya xorriyadda waxay markii dambe afarta quwadood ku heshiiyeen inay arrinta isaga wareejiyaan qaramada midoobay kalfadhi dhowr ah oo qaramada midoobay ay yeesheen kuna dhageysteen kooxo kala duwan oo kala matalaya SYL iyo dhaqdhaqaaqyadii kale oo ku midoobay Conference Somala waxa go'aan ay qaramada midoobay ku gaartay in Soomaaliya la gaarsiiyo ama la geliyo UN trusteeship oo ah maxmiyad ama wasaayo qaramada midoobay oo ay maamulayaan Talyaanigu go'aankaas wuxuu ka yimid Mareykanka iyo Ruushka oo kala taageerayay xisbiyadii shuuciga iyo kii hantigoosiga ee waddanka Talyaaniga oo isku raacsanaa in Soomaaliya dib loogu celiyo xukunka Talyaani balse kuma imaan sida ay dad badan oo Soomaaliya u dhigayaan dalab ay SYL iyadu gudbisay marka ugu dambaysa ayaan intuus doonaa dokumentiyadii SYL ay ka gudbisay shirarkii ka dhacay New York iyo Paris April 1950 iyadoo SYL aad u diidan tahay inuu waddanka dib ugu soo noqdo Talyaaniga wasaayadana asagu maamulo waxa xukunka Soomaaliya la wareegay Talyaaniga oo kala wareegay Ingiriiska Talyaanigu wuxuu bilaabay inuu soo dhiso maamulo iyo heykalo dawli ah wuxuu ka bilaabay inuu isku dayo inuu kor u soo qaado kooxihii isaga hore ula safnaa isla markaana uu cadaadiyo kuwii diidanaa arrintaas oo keentay inay isku dhacaan maamulkii cusbaa ee Talyaaniga ee la baxay AFIS iyo SYL isqabadka labada dhinac wuxuu socday ilaa 1954 markaas oo ergeygii masaarida wakiilka uga ahaa maamulkii AFIS Kamaaludiin Saalax uu ku qanciyay qaar ka mid ah madaxdii SYL inay la muhuraan tahay inay wada shaqayn la yeeshaan maamulka Talyaaniga maadaama ay soo dhowdahay xorriyadsiinta Soomaalida halkaas waxaa ka bilowday wada shaqayntii ugu horeysay ee maamulka AFIS iyo qaar ka mid ah madaxda SYL waxaa xusud mudan in la hoosta laga xariiqo mar labaad in madaxda SYL aanay isku wada raacsanayn in wax wada shaqayn la yeesho maamulka Talyaaniga ee AFIS 1954 waxaa la qabanqaabiyay doorashadii manashiibiyada ee koonfurta Soomaaliya oo ay ku guuleysatay SYL
laba sano kadib 1956 waxaa la qabanqaabiyey doorashooyinkii u horreeyey ee baarlamaan oo isna ay ku guulaysatay Israel markaas ayaa maamulkii Talyaaniga ee Afis waxa uu caddaatay in Israel ay tahay awood aan la loodin karin wuxuuna sii xoojiyey wada shaqayntii ula lahaa madaxdeeda isla sanadkaas waxa Israel ay soo sharaxday ra'iisul wasaare inuu ka noqdo maamulka dawliga ee daaqiliga ah ee la unkayo Cabdullaahi Ciise Maxamuud oo ahaa xogeeyadii guud muddo bilooyin ahna caro u kaga maqnaa kulamada ururka caradaas oo ka dhalatay isqabqabsi iyo loolan awoodeed oo ka dhex bilowday Israel dhexdeeda afartii sano ee Cabdullaahi Ciise uu hayay xukunka daaqiliga waxaa sii xoogaystay dagaalkii ka dhex jiray Israel dhexdeeda qaska ugu weyn wuxuu dhacay 1959 markii la galay doorashadii labaad ee baarlamaanka oo ahayd tii ugu horreysay ee ay Soomaali iyadu maamulato godoodka ay muujiyeen xubno ka mid ah Israel iyo xisbiyadii mucaaradka wuxuu keenay in la xirxiro dad lagu eedeeyay inay rabshado abaabuleen kuwaas oo ay dad ku dhinteen dadna ku dhaawacmeen waxaa ceebta ugu weyn ahayd in xubno ka mid ah Israel ay 1959 bayaan ama petition u qoreen qaramada midoobay kaas oo ay ku weydiisanayaan inaan sidan xorriyad lagu siin Soomaaliya ee dib loo dhigo xorriyadda muddo hal sano ah kuwa warqadaas qorana ay maanta ka mid yihiin magacyo waaweyn oo ummadda Soomaaliyeed wada taqaano iyadoo sidaas la isku haysto Israel dhexdeeda ayaa 1960kii July 1deedii waxaa la qaatay xorriyaddii waxaana loolanka Israel uu soo rogay in sanad kadib ay madaxweynaha dalka ku laalabaan laba siyaasi oo ka wada tirsanaa isla xisbiga Israel kana soo wada jeeda gobolka Hiiraan aadan Cabdulle Cusmaan iyo Sheekh Cali Jimcaale Baraale natiijada doorashada waxay ku soo dhamaatay in sanad kadib uu Sheekh Cali Jimcaale isaga baxo Israel iyo xukuumadda kuna dhawaaqo xisbi mucaarada oo lagu magacaabo Somali National Congress SNC doorashooyinkii baarlamaanka ee dhacay 1964 ayaa cabasho xoog leh ka timid iyadoo xisbiga SNC uu qalqalgeliyay Israel kuraastii baarlamaanka ayaa madaxdii Israel ay geliyeen musuq waxaana ka yimid dacwado loo gudbiyay maxkamadda sare oo ka gaadhay go'aamo cadaaladeed dadkii dacwadaha gudbista waxaa ka mid ahaa ambassador Ahmed Maxamed Darmaan hase yeeshee doorashadii baarlamaanka ee dhacday 1969 ayaa wixii oo dhan isku fuuqsaday kadib markii madaxdii cusbeed ee Israel xoogooda isugu geeyeen in cid aan Israel ahayn aysan ka mid noqon karin baarlamaanka muddo 9 sano ah 1960 ilaa 69 waxa kaliya ee Israel ku guuleystay waxay ahayd inay sugto dimuqraadiyaddii ay waddanka u diyaariyeen maamulkii Talyaaniga ee Afis iyo xorriyaddii hadalka oo qof walba loo ogolaa inuu dareenkiisa ku cabiro si hadal ah ama si qoraal ah waxayna ka waji qabsadeen inay madaxdeeda hoggaanka dalka ka qabtay ku dhaqaaqaan wax caburin ah ummadana la caburiyo waxaan rabaa marka inaan idin tuso qoraaladeedii mid inaan idin tuso hadda waxaad arkaysaan warqad ama kaar ka mid ah kaararkii la siin jiray dadkii xubnaha ka noqon jiray Israel warqadda hortiina aad ka muuqato waxaa la bixiyey 1947 waxaana la siiyey ninka Soomaaliga ah oo lagu siiyey magaalada Qalaafe waxaad aragtaan warqad kale waa warqadii ay u direen for powerska madaxda Israel waxaad u jeedaan inuu ku siixan yahay Cabdullaahi Ciise meesha hoose waxa ku qoran far Soomaali ah oo farta Laatiinka ee maanta Soomaali ku qoran yahay lagu qoray warqadana 47 waxaa ku qoran Soomaaliya ha noolaato waa Soomaali laakiin Ingiriisi warqadu ku qoran tahay wuxuu ka warramayaa dareenka Israel ay qabto iyo mowqifkii ka taagan tahay for powerka oo ku shira Paris iskuna mari waayay qaabka laga yeelayo in Soomaaliya loo gaarsiiyo xorriyad oo wasaayid loo geliyo waxaad arkaysaan wada tashi ay tashanayaan for powerka ay ka tashanayaan sida laga yeelayo wadamadii dib looga qabsado Talyaaniga Eritrea Libya iyo Soomaaliya koonfurta Soomaaliya waa warqad kale for powerka ay u direen xubniga Israel waxaad aragtaan madaxweynaheedii Xaaji Maxamed Xuseen waxaad aragtaan madaxweyne ku-xigeenka Israel Ali Shide Cabdi waxaad aragtaan xogayihii guud Cabdullaahi Ciise waxaad aragtaan qasnajigii Sheekh Ciise Maxamed wuxuu dhalay safiirka Soomaaliya maanta u fadhiya Roma Cabdiraxmaan Sheekh Ciise Abiis geeska waxaa ah xubnihii guddiga fulinta ama golaha iyo golaha dhexe ee Israel halkan waxaad u aragtaan statement ama qoraal uu gudbiyey Cabdullaahi Ciise oo ka wakiil ah Israel iyo Xamar Yusuf Kalaab labadaba ka wakiil ah soo jooga New York waa October 7 1969 marka wuxuu ka warramayaa gobollada dalka banaanbaxyo ka dhacay sida magaalada Kismaayo iyo Gaalkacyo iyo Xamar iyo meelo kale beledweyn oo lagaga mudaaharaadayo dadku uu diidan yahay markay soo shaabaxday ay ku beegan tahay maalintii soo shaabaxday in Talyaaniga loo dhiibayo wasaayada marka buuqi ayaa meesha ayuu cabirayaa dareenkoodii wuxuu sheegayaa in dadka qaar ay Ingiriisku xabadeeyeen oo ay xabado ku fureen markay joojin waayeen dadka ku dhintay meelaha dadka lagu dilay waxaa ka mid ah
tiyaatarka dhabarkeeda magaalada muqdisho haddaan tilmaano iyo meel hadda meel sayidka meeshuu saaran yahay ku beegan magaalada muqdisho marka arrimahaas uu sharaxaad ka siinayaa wuxuu joogaa New York waa kan iyadana waa warqad kale xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa waxa uu wada diray ayagoo jooga New York September 19 Cabdullaahi Ciise oo uu caawinayo Ismaaciil Xasan waa nin Soomaali ah oo u dhashay Hargeysa British Somaliland oo deganaa magaalada New York markii dambana maqaayad weyn xamar ka furtay siyaasadda Ingiliis ganacsade iska noqday laakiin dadkii ka soo qayb galay kamid ahaa lana dadaalay in aan wadanka quwadaha caalamiga isku herdinaya ay dhinaca Soomaaliya uga leexato oo la helo wada afartoodu u wada dhan yihiin inay wadanka qabtaan oo Talyaani Ingiriis midna uusan noqon inkastoo sidaan tilmaamay markii dambe SYL mowqifkeeda bedeshay oo Ingiriiska dalbatay laakiin aysan marnaba dalban Talyaani warqadan waa warqad furan oo ka kooban ilaa iyo dhowr ilaa 10 bog oo Cabdullaahi Ciise uu ku kritikaynayo qaabkay u samaysan tahay iyo habqaabeedka qaramada midoobay oo uu leeyahay ciwaanka saad ka aragtaan qaramada midoobay ma Yurub loogu talagalay mise adduunka oo dhan loogu talagalay marka wuxuu ka dhex qaybiyey xubnaha qaramada midoobay dhexdeeda ku qaybiyey waa 49kii warqadan labaad ayadana waa mid kale oo uu asla kritik labaad oo uu ku dhaliilayo qaabka qaramada midoobay u wajahday arrinta Soomaaliya marka yani gumaysigii oo la badbaadinayo ayuu ku tilmaamay miyay tahay mise qaramada midoobay waxay soo abjaraysaa xukunka gumaysiga jira marka ayadana wuxuu kaga warramayaa sida tii hore oo kale waa waxa uu isku dayayo inuu culays ku saaro qaramada midoobay waxa kaloo intaa dheer oo ayadana mudan in la xuso inaan ku daranay ahayd in radio ku yaala New York uu ka soo deyn jiray af Soomaali la soo hadlay dadka Soomaalida ku nool gobolka Geeska Afrika guud ahaan muddo isbuucii bar ayuu soo warrami jiray halkaasoo lacag yar qarasha laga qaadan jiray SYL-na iska dhiibi jirtay raadiyahaas ayuu dadku kula soo hadli jiray waa radio caadi ah oo maqal ah oo Soomaalida uu soo gaarsiinayo wuxuuna ka soo warrami jiray elaborationka ama go'aanada meesha lagu gaarayo iyo sida qaramada midoobay loo shirayo dooda Mareykanku waxay tahay tan Ingiriisku waxay tahay tan Faransiisku waxay tahay marka sidaas uu soo hadli jiray tan Talyaaniga marka waxaa xusid mudan in 9kii October 1949 in ay isla doodeen SYL iyo xisbiyadii kale oo ku soo midoobay conference marka dooda waxay dhex martay Cabdullaahi Ciise iyo Slomo Hadala oo hogaaminayay conference Soomaaliya marka waxaa xusid mudan in xisbiyadii dhinaca doodoodu ahayd in wadanka 30 sano xorriyad la gaarsiiyo cidda gaarsiinaysana ay Talyaani noqoto laakiin Soomaaliya la xoreeyo ay horay u soo kaxaysteen Enrico Cirulli oo ah nin Talyaani oo caalim weyn ah Soomaaliya aad u darsay wax badan ka qoray markiisa hore ahaa district commissioner xukunkii Talyaaniga laakiin markii dambe Soomaalida iyo Oromada darsay aad ugu taqasusay Soomaaliya iyo teen si doodooda u cilmiyeeyaan dooda ay bandhigayaan marka Cabdullaahi Ciise sanad Ismaaciil Xasan iyo dad difaac Soomaalidii New York ku noolay ayaa la socotay oo u badnaa ama wada ahaa dad ka soo jeeda British Somaliland marka waa kaas waa Cabdulqaadir Cali Boolay dadka ugu dambeeyay SYL kamid ah 2 sano aan ku wareystay masjidka dhexdiisa masaajid ku yaala South East London Koonfur Bari London meesha uu deganaa maalinta Quraan uu halkaas ay halgankii SYL iyo SNL oo ugu guuleysay halkaas aan ku soo abjar lahaa Dr. Dodi Shaadan ku soo wareejiyay Dr. Ingiriis aad baad u mahadsan tahay ¿Qué onda tu pecho arriba, las manos, caballo moreno, penetra tu barrio, ese new rock,